wardegdega oo hadda soo dhacay nimankii mucaaradka ahaa ceeb xoogan ay dhexda kaga jiraan kadib markii qaar kamid ah xubnihii golaha mustaqbalka Soomaaliya ay ku dhawaaqeen isla markaana beesha caalamka ay u direen fariin ah in Soomaaliya ay u baahan tahay waqtigan in dib loogu celiyo madaxdii ku meel gaarka ahayd isla markaana la laalo nidaam walba oo dawladnimo ummadda Soomaaliyeed ay ku soo daalayeen 30 sano ee la soo dhaafay. qaar kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah ee golaha mustaqbalka Soomaaliya ayaa durbaba hadalkaasi si weyn uga dhiidiyay kana hor yimid. waxaan rabaa inaan halkan idinkugu baahiyo xogta laba siyaasi oo gobonimo ciyaaray isla markaana iska diiday damacii waalnaa ee kooxaha mucaaradka ah ee Soomaaliya. waa kuwee labadaasi nin maxayse ka dhigan tahay tallaabada ay qaadeen xilli dad badan ay si weyn u ammaaneen isla markaana Shariif Sheekh Axmed madaxweyne hore dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale qaar kamid ah siyaasiyiinta kale ee mucaaradka caawa iyo maanta iyo saacadaha xitaa sanadaha soo aadan waxa raacday cambaar xoogan oo kaarkoodii siyaasadeed soo gaabinaysa. halkaad naga daawanaysaan warbaahinta CSM xog arrimaha isku gadaamanaya idin sii doona waxaan ahay Cali Baashi Cabdi haddaba nala jooga. ma qorsheynaysaa inaad u dhoofto dalka dibadiisa mana raadinaysaa tikidhadii ugu jabnaa hay-adihii kufan haddaba shirkadda Mareeg Travel Agency Cargo oo looga haray fududeynta arrimaha safarka waxay diyaar kuula tahay wax walba oo aad uga baahan tahay fududeynta arrimaha safarkaaga. adeegyada safarka weli kartid waxaa kamid ah tikidhada diyaaradaha duulimaadada caalamiga iyo kuwa gudaha oo qiimo jaban adeegyada dalkugalka visa service caawimaad buuxda oo ku saabsan habka fiisa dalbashada hoteelo raaxo leh oo ku habboon miisaaniyadaada ayaanu kugu diyaarinaynaa goob walba ama garoon walba oo aanu xajka iyo cumrada oo si damaanad leh lagugu geynayo goobaha barakeysan ee xarameynka. kuna darso waxaan ku haynaa kaargo 24 saacadood shaqeynaya kaasi oo degdegsiimo iyo damaanad leh alaabtaada meel walba oo dunida kamid ah daqiiqad kugu keenaya. Mareeg Travel Agency Cargo looga haray fududeynta arrimaha safarka waxay xafiisyo kala duwan ku leedahay magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho. wagaag xafiiska Nairobi oo ku yaala Islii James Street-ka soo horjeedka Kulan Coffee suuqa weyn ee loo yaqaano Hoda Tower Festival xafiiska nambarkiisuna waxa uu noqonayaa F30 amaba ugu hagaag xafiiska Muqdisho oo ku yaala suuq Bacaad Ruxsan Mall garoon falo sidoo kalena dukaanka ama xafiiska nambarkiisu waxa uu noqonayaa F20. wixii intaasi faahfaahin dheer kala xiriir nambarada iyo ciwaanada kale ee shaashada ku qoran adigoo beegsanaya nambarada ku qoran shaashada hore ee muuqaalka. Mareeg Travel Agency waa maareeyaha safarkaaga. waxaan wanaagsan markale saaxiibayaal marka hore subax wanaagsan maadaama warkan aan idinku keedinayo waa mid degdeg ah oo dhawaan soo dhacay iyadoona saacadihii la soo dhaafay si weyn siyaasiyiinta mucaaradka Soomaaliya qaarkood ay ugu baaqeen beesha caalamka in la joojiyo nidaamka dawladda Soomaaliya ee federaalka dibna loogu laabto nidaamkii ku meel gaarka ahaa la soo doorto xubno ku meel gaar ah iyo dawlado shisheeye oo markale Soomaaliya ku celinaya stage-kii iyo marxaladii foosha xumaa ee dalku u istaagay sanadkii 1991 laba nin oo reer koonfur isla markaana Muqdisho ka soo jeeda isla markaana kamid ahaa xisbiga uu garwadeenka u yahay ra'iisul wasaare hore dalka Cabdi Faarax Shirdoon Saacid waxay qaateen gobonimo xoogan. labadaasi nin midkood waxa uu noqonayaa gudoomiyaha guddiga ama xisbiga loo yaqaano awoodda shacabka horena uga mid ahaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee da'da yar Thabit Cabdi Maxamed gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir sidoo kale mid kamid ah siyaasiyiinta ku ololeeya in mar walbaba mudnaanta la siiyo shacabka Soomaaliyeed ayaa si weyn ganafka ugu dhiftay saaxiibadiisii hore ee ku baaqay in markaasi dalka loo celiyo dawlad ku meel gaar ah. qoraal uu ku soo qoray bartiisa gaarka ah ee Facebook ayuu gudoomiye Thabit waxa uu ku sheegay in Soomaaliya waqtigan aysan u baahnayn in dib loogu celiyo marxaladii qaraareed ee dawladda ku meel gaarka ah sidoo kale dhibaatooyinkii burburka lahaa. wuxuuna sheegay intaas saaxiibadiisa golaha mustaqbalka iyo si guud xisbigii iskaashiga ahaa ee uu garwadeenka u ahaa Cabdi Faarax Shirdoon uusan tan ka aqbali doonin. wuxuuna sheegay kuna dhawaaqay in Soomaaliya waqtigan ay u baahan tahay badbaado sidoo kalena xal walba lagu gaari karo in madaxda sare ee dawladda waqti dhamaadka ama muddadeeda uu dhamaadka yahay iyo ragga mucaaradka ay hal miis wada fadhiistaan isla markaana la iska tanaasulo. sidoo kalena xildhibaan Islow Ducaale oo sidoo kale kamid ahaa
dadka sida weyn mucaaradka ugu tiirsanaa maalmihii lasoo dhaafay ayaa garafka ku dhiftay diidana arrimaha xoogan ee hadda mucaaradku ay damacsan yihiin islamarkaana dalka lagu burburinayo. si walba yaataba labadaasi nin ee siyaasiyiinta ah ee dhalinyarada ah ee reer muqdisho kasoo jeeda waxay qaateen marxalad wanaagsan islamarkaana ay meesha uga saarayaan damacii waalnaa ee Shariif Sheekh Axmed Farmaajo Saacid iyo sidoo kale Fahad Yaasiin. tanina waa guul mudan islamarkaana weyn oo taariikh badan oo dambana si weyn loogu amaani doono. haddaba maxay ka dhigan tahay in labada nin xisbiyadoodii ay kaga aragti duunaadaan marxaladan adag in wadanka dib loogu celiyo xilligii Gabre iyo sidoo kale wakiilada Afrikaantu ay maamulayeen siyaasadda dalkeena. sidoo kalena waxa uu sheegay Thabit Cabdi oo hadalkiisa sii watay in dadka Soomaaliyeed aan la niyad dili karin islamarkaana hadda wixii ka dambeeyay loo baahan yahay badbaado qaran ee aan loo baahnayn burburin iyo in dalkan dib loo celiyo. dad badan ayaa u riyaaqay hadalka gudoomiye Thabit Cabdi iyo sidoo kale xildhibaan Islow Ducaale oo isna si weyn saacadihii la soo dhaafay uga hadlay qadiyad mucaaradka Soomaaliya ay taabteen. halkaan naga daawaneysaan waa CSM aniguna waxaan Cali Baash Cabdi. xog walba oo soo kortana halkan ayaan idin kula wadaagi doonaa goorta iyo sidoo kale waqtiga ugu dambeeyay aniguna sidoo kale ku falaqay doona kuna faaqidi doona goor walba xaaladaha siyaasadeed ee soo kordha. kamid noqo taageerayaasha warbaahinta CSM oo yani ku seegan xogaha degdeg ah ee aan goor walba halkan ugu soo baahino saaxiibadeena.